inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wala wada dhimanaya balse geeridu kala xanuun badan waxaan halkan tacsi uga diraynaa marka hore walaasheen Xamdi Maxamed Faarax oo gacanka xaq darani ay markaasi ay dishay hadaba yaa ka dambeeyay dilka marxuumad Xamdi Maxamed Faarax halkee ayaa lagu dilay maxaa loo dilay maxayse ahayd sababtii ugu weyneed ee gabadhan loo shirqoolay muuqaalkan ayaad ku daawan doontaa daawade soo dhawow ayaynu ku leenahay marka hore waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka like aad saarto si saaxiibo badan oo wanaag doonayaal ah oo muuqaalka u gaaro lana wadaag oo u sheer garay saaxiibadaada si gabadhani dhimatay Allah u naxariistay ay markaasi cadaalad u hesho xaafada Maajo ee degmada Waabari ee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay fal arxan darro ah oo lagu kufsaday Xamdi Maxamed Faarax dabadeedna lagu dilay oo dabaq 6 biyaana ah gabadhaas laga soo tuuray wiil dhalinyaro ah ayaa ballansaday sida wararku ay sheegayaan Xamdi oo ay saaxiibo ahaayeen waxayna ugu timid guri ku yaala degmada Waabari kaligiis wiilku ma uusan ahayn sida ay wararku sheegayaan waxaana la joogay baa la leeyahay wiilal isaga ay saaxiibo ahaayeen kadib gabadhii ayay xoog wax uga dayeen isku daygoodiina waa uu u hirgalay safmar ayay ugu galmoodeen gabadha maskiinta ah iyadoo qasab uu falkaasi ku dhacay kadib markii ay ka bogteen talaabadooda qaldan ee ay kula kaceen Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax waxa ay ka soo tuureen dabaq ku yaala xaafada Maajo degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ciidanka oo soo daahay ayaa qaylo dhaan kadib yimid goobta waxa ayna xireen dhalinyaro falkaas looga tuhunsan yahay iyo sidoo kale qofkii lahaa guriga uu falku ka dhacay waxaynu eegeynaa waa tuma Xamdi Maxamed Faarax Xamdi Maxamed Faarax waa muwaadinad Soomaali ah waxa ayna muddo dheer ay ku nooleyd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Xamdi waxa ay ahayd ardayad dhigata iskuulka Al-Najaax oo ay halkaasi wax ka baran jirtay dabeecadda gabadhan oo qof si aad ah u garanaya iyaga sheegay ayaa waxa uu ku sheegay in dabeecad ahaan ay wanaagsaneed la dhaqanka bulshadana ay aad u jeclaysan jireen maadaama ay ahayd gabar furfuran oo dhanka la dhaqanka bulshada ku fiican hadaba daawade maxaad isleedahay waa looga hortagi karaa falalkan wuxuushnimada ah ee ku soo badanaya gudaha dalkeena Soomaaliya maxaa ku haboon dadkii waxaasi sameeyay in la marsiiyo sidee ayay gabadhani cadaalad buuxda ku heli kartaa maxaa gabadhan looga aamusay oo madaxda iyo aqoon-yahanada aysan gabadhani arrinkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho aysan uga dhiidhinaynin fadlan daawade qaybta hoose ee commentiga fikirkaada inoogu reeb lana wadaag asxaabtaada si saaxiibo sidaadoo kale ah oo muuqaalkan u gaaro isla markaana daneynaya muuqaalka waxaynu ku gabagabaynaynaa hadalka ah Xamdi Maxamed Faarax cadaalad ayay u baahan tahay